madaxweynaha Somaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi oo ka qayb galay munaasabadda qalinjabinta kuliyadda tababarka macallimiinta Somaliland ayaa khudbadu halkaasi ka jeediyay waxa uu ka hadlay qodobada ka soo baxay shirkii dowlad goboleedyada Soomaaliya isagoo si gaar ah u dul istaagay qodob sheegaya in xildhibaanada Somaliland ku metelaya baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya laga dooran doono xamar. madaxweynuhu waxa uu arrintaasi ku tilmaamay wax lala yaabo. waxa aad iyo aad miidiya u haystay muqdisho iyo shirarka socda iyo Soomaaliya muddo waxay maqlaynay 6 madaxweyne oo xamar ku shiraya waxa ka soo baxay markii ay wuxuudii dhamaysteen hal go'aan oo Somaliland ay kaga hadleen runtii ereygaasi ay Somaliland nimanka waaweyn isu tagay aad u garanayaan madaxweynayaasha dowladahaasi wuxuu ahaa erey aan ninkii dhegeystiba uu yaabay. Somaliland oo ah Somaliland protected kii xuduudda ka qaatay Ingiriiska waxay ku yidhaahdeen baarlamaankooda Somaliland waxaa laga soo dooranayaa magaalada xamar. caqliga iyo hogaaminta Somaliland iyo cidda mustaqbalkooda mataleysa waxaa laga daaraa muqdisho. su-aasha waxaa weydiinaya kuwii soo jeediyay masaasay tala ka noqotay ma doqoniina ma cadaawad baa arrintaa bahadalaha loo qaado. waxaa kaloo la yaab leh dadka Somaliland oo dhan oo ahaa dadkii xorriyadda qaatay 1960 oo kowdii iyo wala dowladda weedhaa ka soo baxday madaxweynayaasha Soomaaliya ee lixda ah maxay tahay eedaas? ma cayba ma goyba ma gef loo bareerayba ma weerarba? Somaliland iyada shacabkeeda sheegi doona wuxuu ereygaas soo meesha qabtay xamar baan idinka doonayaa oo ku talinaya ereygaas halkaas u yaalaayo waxa uu yahay waa laga jawaabi doonaa haddii la wixii. madaxweynaha oo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu jawaab ka bixiyay hadal ka soo yeedhay madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya kaasi oo sheegayay in midnimada Soomaaliya tahay muqadas Somalilandna ka mid tahay Soomaaliya inteeda kale. xalay waxa ka hadlay TV-yada madaxweynaha ka mid ka lixda madaxweyne ee villa Soomaaliya xukuma Mr. Tumajo waxaa la weydiiyey ka warran arrinta Soomaaliya iyo Somaliland si kooban wuxuu yidhi gobolkaasi ka gu'i maayo Soomaaliya weligiina heli maayo xorriyaddu doonayo. qolada siyaasiyiinta ee Somaliland baa dadka waaraysa oo waxaa ku sheekaysay Afrikiinama oo qolo oo way kala yaacaysaa 30 sanana waa loo diiday markaa shicibku uu is ogol yahay niman baa waxaa sheegay haddan bayso sentence-ka inteeda kama dhame qodobka ah gobol ka mid ah gobollada Soomaaliya. dadka Somaliland waxaan weydiinayaa iyo caalamkaba iyo kuwa koonfurtaba 1960 bishii Juulaay yaa midoobay ma laba dowladood baa midoobay oo Somaliland protectorate iyo qoladii Soomaaliya ee hortaagay jimciyadda gobolka dhaxaysa miyaa midoobay oo loo baarlamaan iyo laba madaxweyne ayaa midoobay mise gobol ka mid ah ahayd Somaliland Soomaaliya Talyaani? waa erey u baahan la isweydiiyo. ereyga madaxweynaha villa Soomaaliya ugu yiri xagee uga keenay gobol ka mid ah Somaliland? lixdankii laba dowlad baa midoobay mid waxay ahayd 8 degmo oo Soomaaliya ahayd midna waxay ahayd 6 degmo oo Somaliland ah. markii la isku daray awoodda si walaatiinayay dib loo taliyo waa laga ka rabo shatiga soo dooranayay 8 degmo ee koonfurtu waxay noqdeen 8 gobol. 6 degmo ee Somaliland waxay yiraahdeen laba ka dhiga laba gobol togdheer oo inta bari 3 gobol bariga ah gobolada bariga la yiraahdo Qurco iyo gobolada dambeedka Hargeysa. waa qalinkii bariga la qaaday waa waxa la ku dhaamay kuwii xigay waxay yiraahdeen laba gobol qaataan waxa waa gobol Soomaaliya ka mid ah maanta. waxa ay isku qabanay makeekiga farmaajo maanta oo ku hadlay iyo marxad furkiisa isagu ku sheegay isla toddobaad ka hor
markii uu xilayo shirka madaxweynaha dowladaha Soomaaliya ku kulmayeen wuxuu yiri waxaan ku dadaalay oo wuxuu u sii daayay inaan soo hayo Soomaaliya horay gool u joogto horay daaw ahayd Afrika shaqo soo dhawaaday maanta wuxuu waa gobol kamid ah oo maqo waa labaan isku qabay waxa taagay sanadkan gudihiisa farmaajo wuxuu soo tago caalam koobay waxaan raadinay ka bixinayaa xasuuq in loo geystay Soomaaliya xasuuq loo geystay oo madaxweynaha fadhiyay ka badka ka bixiyay raadigelin afkiisa xawla caalam haddana saaka inuu yiraahdo ma go'in karto oo ma noqonayso oo waa gobol waa makeek iyo marxalad fil socdo garan ma ayo xaq u socdo hadalkaas waana afkiisa Soomaalidu waxay tiraahdaa ilaahow ha iyo may meel hadig u yeeshay ha tilmaamin aakhiro waxa tactibayaan farmaajo waxa la yahay ha tilmaamin digo waadi kaama koo jareen assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Axmed Maxamuud Dalsan TV Hargeysa.